waxyaabaha aad adiga sababta u tahay in jaceylkaagu isbeddel ku yimaado kadib markuu ogaado in aad si dhab ah u jeceshahay waa 3 sabab. Sababta koowaad, markaad qof xiriir la wadaagaysid waa in aad ogaatid qiimaha aad adiga leedahay si uu u ogaado qofkaasi qiimahaaga. Qofna ha isku leedin baahi walba oo aad u qabtid. Sababta labaad, cafiska badan ee aad cafinayso jaceylkaaga markuu qaladaadka yaryar uu ka galo. Cafiskaasi wuxuu wax u dhimayaa qiimahaaga. Qofkaasna wuxuu ogaanayaa in aad u baahan tahay. Waxaana laga yaabaa berri qalad weyn in uu ka galo, laakiin haddaad kula xisaabtantid qaladaadka yaryar, wuxuu iska ilaalinayaa qaladka weyn. Sababta saddexaad, qofka ha siinan in ka badan inta uu qalmo. Haddaad tustid jaceylka xad dhaafka ah ee aad u qabtid, wuxuu bilaabayaa in uu ka caajiso, waayo wuxuu ogaanayaa in aad gacantiisa ku jirtid oo aadan ka maarmaynin. Sidaasi darteed, siduu doono ayuu kuula dhaqmayaa. Haddaba maxaa xal u ah isbeddelkaasi? Waxaan kuu raacinayaa 3 qodob oo xal u ah isbeddelkaasi. Adna ha iga xasdin in aad ii taawatid adariska. Isbeddelkaasi waxaa xal u ah qodobadani soo socda. Qodobka koowaad, qiimo u yeel naftaada, hana isbahdelin. Haddaad iskhilaaftani ka fogow waqti kooban. Hadduu ku soo raadiyo wuu ku jecel yahay, hadduusan dib kugu soo laabanin awalba kuma rabin. Qodobka labaad, kula xisaabtan qaladaadkiisa oo si fursad uu kugu raaligeliyo uuna ku qirto qaladkiisa. Markuu intaasi sameeyo kadib, ha ku adkayn, horeyna ha ka cafin. Waqtigaaga qaado, kadibna cafi. Qodobka saddexaad, ha ku dhegdhegin oo ha tusin xaddiga jaceylkaaga, waayo jaceylka dhabta ah la isma tuso, balse waa la is dareensiiyaa. Hadduu dareemi waayo jaceylkaaga, qofkaasi xaq uma lahan in aad la sii socotid, kumana qalmo ee ka fogow. Fadlan haddii aad muuqaalkani ka heshay ama uu ku caawiyay, please adreska noo taaba naga xasdin. Haddii aad ka hesho muuqaalada noocan ah in aan soo badinana, fadlan muuqaalka loof saar. Wixii aragtidiina ahna waxaad inoogu reebi kartaan qaybta hoose ee commentiga.